qisadan waxay ku dhacday laba gabdho oo saaxiibo ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah, labadii gabdhood ayaa is soo raacay. Waxayna isku soo raaceen meel swimming pool ah ama moolka lagu dabaasho. Balse laakiin labadii gabdhood mid ka mid ah ayaa xogaha cabsi waxyaabo noocaas dareentay. Xili haweenna way ahayd. Markay imaadeen meeshii swimming poolka ahaa, labadii gabdhood waxay go'aan ku gaareen inay meesha galaan ay ku dabaashaan. Labadii gabdhood mid ka mid ah ayaa swimming poolka ku hormartay. Saaxiibadeedna way sugaysay ilaa ay ka soo galayso. Gabadhan kale sidee swimming poolka ugu jirtay waxa ay dareentay shanqar sida qof biyaha hoostiisa ku dabaalanaya oo kale. Gabadhani cabsi ayaa soo wajahday, mana ay taqaan waxa ay samayso. Sidoo cabsanaysay ayaa waxa ay dareentay si shay dhankeeda u soo dhaqaaqaya oo kale. Wixii dhankeeda ayuu soo socdaa. Waa wax sida qof bini'aadan waag oo kale. Gabadhii kale aad ayay u baqaysaa. Aad ayay u cabsatay. Sababtoo ah saaxiibadeeda weli meesha ma ay soo galin. Muxuu yahay qofkaan madaxa bini'aadan kale? Markay soo baxday waaba saaxiibadeedii. Gabadhii hadda cabsida waa ay ka baxday. Balse laakiin saaxiibadeeda gacan ayay u soo taagtay. Sidii ayayna isku raaceen. Kadib waxay dareentay waxay gacanta u soo taagay inuusan qof caadi ba ahayn. Aad ayay gabadha u sii naxday. Waxay u jeedaaba saaxiibadeedii oo banaanka taagan. Hadda lay rabtay inay meesha soo gasho. Waxaana gabadha u imaaday maba aysan ahayn saaxiibadeeda. Waxaani oo dhan waxay ahaayeen waxyaabo mucjiso ah. Gabadha saaxiibadeeda maba ahaba labadan gabdhood ay aragtay. Daqiiqada kadib meesha waxaa imaatay gabadhii saaxiibadeeda. Gabadhii kalena sidii ayaa lagu waayay.